انت النجم مكان عوضك إلهي وصوهنوني آمين دا انت النجم مكان عوضك إلهي وصوهنوني إلهي وأيضا نبت قبل نوكين ما هبارينو منع عينينو إلهي بان أبرينا إنو إلهي نوكينو أو إلهي نوسو هنونيو إلهي بان أبرينا عوضاقو وحال أكتهين دالكن وحال هدو حلقة يابا هدالكين إسو مرين دالكن وحال لغود دغي أو عوضاق وكود دغي أسكو ملكيي دعاء إيا دين إيا إكرام أيا لغود دغي دقنكي عوضاق نكاسو أها annaga waxaan soo gaarnay duqowda meela geedaha ay qanti jireen markay lag yaasiin gelinayn geedaha ay qanti jireen oo ku xisaabsan jireen geedihii ayaga ah waa soo dhawaadeen oo calaamadii ay ka muuqato awdaqaas uu ahaa awda fuuja ma aqoonin iscayn ma aqoonin wuxuu ahaa dad ikraam iyo khayr iyo diin iyo duco lagu soo dhaqay boqoradii cawdaq soo hogaamiyeen ee dalkan qabteen 100 geel ay bixin jireen culimada markay imaato muxuu ahaa 100 geel 100 lo inta soo gabare saasa dalka ku degteen ood ku milkiseen ood ogaadeenka kaaga duwan tihiin haddaad bedelaysaan oo cisyaan iyo muxuu ahaa iscayn iyo wax aan loo joogin aad ku bedelaysaan إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى ذاتك أيها إسبدلان أو وحي أصل كوضي يا أبيال كوض لغو يقين أي بدلان إلهي ما بدلو إلهي ما بدلو آمين كل محمد دعاء مقربة سلام مقربة تقول يدعي ذكر وعافي عن وحي بلشير وظن إنه قرطافي عن وقرنا إنسان maamulkan iyo nidaamkan iyo shaqadan sida lagu keenay haddana maanta ma haboono dad idin oo socdo oo macquul ah oo wax garanayo oo maaragtay culimo iyo qeyrkeed iyo dumar iyo carruurba leh inay hadaf la-aan ka socdaan waxaan u malayn waxaa ka fiican inay dantooda gartaan marka almuhim waxaan rabaa inaan kusoo koobo 2 shay midda koowaad waxaa weeyo nin baa ilaa la yidhi markii dhegta lii waday dabeel baa geel ii rimisay markii liisii daayayna dabagaalaha hal iga jebiyey waxaan u malayn dadka dhegtaa la sii daayay ama nimcadii baa ka badatay markay nimcadii ka badatay marka buraaqaa la bilaabay waxaan dhihi lahaa aniga dad odayaalaa nahay dad wax garanaa nahay dad doorasho iyo nidaamkeeda ka sibaa nahay meel cilayaana ku daalin ficil dad aan loo kala ficiloonin yaan u kala ficiloonin waxaan kusoo koobi lahaa midda koowaad ilaahay tawfiiq hana waafajiyo ilaahay tawfiiqsama meel lagu maraayo waxaan anayn meel ku mari karnee ta labaadna waxaan dhihi lahaa inaan isgaranaa nagu habboon inaan isgaranno danteena garanno oo kursigan iyo nimcadan maanta taallo aana ku ciyaarin nin walba oo waxgarad nima dhalaan ahaynba had waa beri og baa la yidhi anigu waxaanan kusoo koobi lahaa kursigan inaan lagu ciyaarin waxaa hadda aan arkaya ciyaar baa meesha ka muuqataa ciyaarna haddii wax laguma wadi karo cidna laguma hogaamin karo anigu waxaan dhihi lahaa kursigan ciyaarta aan ka dayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عوضقو سو نبد maaha hadalkayga wuu gaaban yahay ma badinahay sida dadkii iga horreeyay ay ku hadleen tawfiiqta ilaahay hana waafajiyo muwaafaqana allah hana siiyo intaa bacdigeed maqsadka meeshan loo imaado waxaan u malaynay waa wax siyaasad ku saabsan waqtigii kala guurka ahaa ee waddanka uu kala guuray baan joognaa masalayeen baa cawdaqnahay go-aankaasaan qaadanay wixii ka daba imaade oo yeryeeray meelahan ka shanqaray waa waxaan waxba ka jirin waa waxaan cawdaq u dan ahayn waa waxaan gafana lagu helaynin maqsadkan ka hadlaynana waxaa waaya cawdaq inuu guulaysto gafana uu helo wiilal baan dooran jirno cawdaq oo wiilkan ka horreeyeen
15 سنة 25 سنة yaan dooran jirnay warkan soo caawda maaha maxaa 5 sano oo maxkamad uu saaran yahay ka dhig asag nasiibkiis annaga haddaan caawdaaqnahay waxaan qaadanay go'aankii geedka caawdaaqna saasaan u sheegaynaa geedka niman yahow geedka hala iido annaga wixii geedka aysan ma aysanaa caawdaaq baan ahaa caawdaaq markuu meel haysta waad ka siisin caawdaaq markuu dhacana waad ogtihiin markuu wax helana waad arkaysin midnimo waxay tarta waad aragteen midnimo waxay tari waaysan waa aragteen mar baan midnimo la'aan wax noola qaade waan midowne intaan midowne inta dawladda aan helna inta madaxa aan helna waad la ka siisin walaayintii salaamu calaykum nidaamkii hore kaanuu baan ku noqoni ani cali bunowiko waabi cali bunowiko waabi cali bunowiko waabi asante sana asante sana asante sana bismillahi rahmani rahim waana jimca maanta dadkana wuu isa sugahayaa waxaa way caawdaaqow rag iyo bilcaanbo annaga webigan sidaan ku helle waad ka saysiin webigan sidaan ku helle waad ka saysiin cabdi ibraahim meyduu ku dhintay waad ka saysiin indhahan ani waxaan ku arkay sambul cabdi anoo 5 jir 1941 baan dhashay 76 sano uu xabaalay sambul cabdi ninkii og iyo nimaan ogeenbo ilaa macallim maxamed aan hoostaagnaa ilaa haddaan deeqow hoostaag mimi musee kabisa si watoto ya jana had ma dhalanin ani caawdaaq sibuu ku soo dhaqmay diin iyo dadnimado hadda caawdaaq intuu qamiisyo gagashada calool weyn yeesha rabo inuu webiga nala goysiiyo siisi hatutaaki caawdaaq intuu qamiisyo gashada caloosha weynaasa hadduu rabo inuu la eriyo webiga la goysiiyo jidka ha ku dhex baktinina security leaders baan helle nabadgelyaan helle waan seexadne waan hurudde kila muto anachukua pesa maxaa dadka maxaa eryahayaa baahida haysa maan maxay intee loo jeedaa intee lagu socdaa diin iyo dadnimaan ku furanay dalkan kutoka daanyeere baka boodaay intaasuu talamoga waa gubbadaa yar baan degan waa meel yar meeshaa la rabaa in nagala eriyo nala kiciyo intay ku soconna gaambo haddaan u gudubna ni adhiya oroma sisi abana yetu haba ni yetu tu haba garissa maryaa intaad ku socotiin maxaa loo bawi cali bunow waa lagu soo celin wuu ku soo noqon waxaan inii sheegaynaa caawdaaqow waxaan u malaynay caawdaaq dheeldheel maaha caawdaaq waa qaran adduunkoo dhanna laga og yahay caawdaaq waa qaran adduunkoo dhanna laga og yahay 13 sano yaad meeshan aad degantoy aad u soo guuraysay 2 sahan oo la soo diray mid wuxuu ka dhacay saangur buu ka dhacay midna wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo burra iyo ka shishe waliba waxaa laga soo sahmiyey oo cabdi ibraahim uu ka soo diray meesha caawdaaq la yiro bal dhageysta caawdaaq waad maqasheen dalka caawdaaq la dhaw caawdaaq baa deganaa caawdaaq la yiraahdo waa la su'aalay cidda maxaad u dhumana waa la yiri waxaan rabaa buu dhahay meel caawdaaq wiilka u dambeeyo ama gabadha u dambayso ay ku nistaan oo ku nagaadaan oo webi yaan dejin u dhahay meeshan saasay ku soo degtay 13 sanaad u soo guuraysay ciidan waxaad ogtihiin ciidana ku hiilini horta wax laga qaadi karo ma jiro ciida ku hiilini markay intaa tahay 4 boqor deeqow baa miishow 4 boqor buu soo lahay caawdaaq maalintay waxoogaa ay dhacay uusan ka tagay waddanka waxaa dhacday caawdaaq oon ku mahadinaynaa haddaan nahay caawdaaq beesha aadam cali aan nahay mahad baan u celinaynaa caawdaaq cimaamaddii duqa madaxa oogu duubneed meel baa la dhige
maalintuu deeqow moodhikaarey soo gaarana waa laga horgeeya deeqow baa madax laga saaray halkaa cawdaq baa frisay deeqow taariikh baan rabaa inaan inin sheego aada maqla annagu meeshaas uu naga joogaa cawdaq boqor deeqow waa boqorkii afraad halkaa uu jooga karaamo waxaa la saaray 7 cimaamad ee aad ii maqla maalintii la boqoray 7 qoysay cawdaq cimaamadahooda had meesha yaalaan maalintii uu hadlay waxaan rabu ina afdhi madaxweynaheeda inaan noqto waan soo hungoobay beeshaydaan u imaaday boqor baad iga dhigateen yaan inii cunin yaan inii qaniinin meeshaan ku soo hungoobay tanay kuma hungoobay yaana cidda cunin haddaad boqor iga dhigateen yaa lii baalmarin ma maqasheen yaa lii baalmarin oo dhinac la iga marin oo cidda la dhuminin boqorkasuu meeshaa ku degan yaha waa halkaa waad ogsoon tahaan nabaddii maantadan iida ee aan ku helnay cali bunow qorane maalin walba wiil cawdaqoo gowracanaa meeshan imaani jiri waxaad ogsoon tihiin dheeldheel ma jiro aad aan isu maqalno waxaan rabnaa waxaan ku hadalno inaad maqashaan ninkaanan boqorkii uu meeshaa geystay duqu meeshaa uu geystay aanan aaminsaneen oo qoyska 7 asagay u taallaa ninkaanan aaminsaneen 7 odayna asagay u taallaa ninkaanan aaminsaneen boqorkii meeshaa joogana asagay u taallaa 7 beri baan fadhinay 7 dabee cawdaq odayaalkooda hadalkayga aad i maqla warbixin baan idin siin rabaa aniga warbixintayda dhegaysta 7 beri baan fadhinay waxaan u fadhinay gafana 7 dabee cawdaq odayaalkoodii annaga cali baa fiicanaya cali axun uma soo qaadna badbaado cawdaq baan u soo qaadnay cali ma maqasheen boqorka wuxuu yidhaahday aniga boqor baan ahay cidaha inaga nii soo wakiisheen oo wakiilkee baxa cawdaq soo badbaadiya keena badbaadadiisa ilaahayna la kaashada annaga waxaan ka hadalnay oon u fariisanay hebel baa xun iyo hebel baa fiican iyo hebel baa lacaqaba iyo hebel baa kan maaha cawdaq ninka kale ee maanta kursigan ku badbaadini karo inuu cali bunow qorane uu yahay wax horta dhiboo sii weyn ma jiro labada nin oo isla taagan waa 2 nin oo walaalo ah qoyska oo ka soo wada baxday 2 nin oo walaalo oo qoyska oo ka soo wada baxday way wax hadda anaka u kala gudsanayno ma ay jirto maxaa weeyo ayaka horta fiicnay horta inay hoos ka wada hadlaan ma dhicin wixii waa isku qasay marka ilaahay maxaan ka barinaynaa qalbigood ilaahay isku soo celiyo 5 sano hadda dhamaan hayso cali maalinku soo galay dacwada lagu qaado hadda ku taagay waxa ku qaadana waa awdaq wax ka maqana ma kasayno wax ka maqana ma jirto hogaamiyaha waxa dhibkood wadana waa un yaxya ana hadda maxaad cali kama sheegan karo xumaan yar kama sheegan karo awdaqna saasoo kale tan wey hadda ilaahay maxaan ka barinaynaa muwaafaqa khayr qabta inuu nasiyo oo qalbigaana isku soo celiyo gambarka anaka iska leh maxay tir Soomaali lagu rido walaalkiis limin ma moodo ninba maxay laf qalay saa ugu riday limin ma moodo waxaan maxay laga taliyo ilaa geedka boqorka ka soo baxday odayaashay ka soo baxday tol weynaha taxtaala tolkina waa kan wax hadda loo sii dhifara ma sii jirto ilaa hadda iskugu yeerno oo walaalow dhahno had maxaa u malay inay qabsoomayso Soomaali hamidowdo ogaadeen hamidowdo cawdaqna hamidowdo laakiin cawdaq uu midaysay bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaan rabaa inaan taariikh yar idin soo maro kadibna 2 iyo 3 eray baan yaan sheegi kadibna gabar beri dardaaran ay uga tagtay xafladan oo kalaan idin marin waxaan idin sheegi taariikhda siyaasadda cawdaq 63 laga soo bilaabo nin baa 15 sano ku jira gambarka cawdaq qoys buu ka ahaa qoys buu ka sii ahaa may maqlashaan allah u naxariistay cabdi carees maxamuud nin wanaagsan uu ahaa waa ninka isbitaalkan dhisay waa ninka bridgekan dhisay waa ninka power light keene taariikh mu ka tagay mise kama tegin laakiin 15 sano lagu celinay soo ma cawdaq waa u midaysnaa rag baa la istaagi jiray faataxa la mari jiray
waxaan ku soo wataa faataha cawdaq meel uu ku marto weligeed maaragtay la baalmar lama arkin midda kale waxaa weeye waxaa ku xigay nin aad garanaysaan aamus waxyar nin aad garanaysaan baa ku xigay oday baa noo keenay oo madax ka ahaa dowladda Kenya odaygaas ninka asaga 25 sano la soo doortay 5 sano oo nominated laga dhigay iyo 20 oo doorasho ku soo galay inkastoo waxyaabo meeshan inaan ka sheegay aan rabin ay santi dambe ay ahayd sidoo ku soo galay ilaahay anaga garanaa laakiin 25 sano ayuu ku jiray Xuseen Macalin asagana waa ninkan hore u soo sheegay Allah u naxariistee bay isku reerihiin isku qosnayeen cawdaqna raalli uu ka ahaa amarka ayaa bixin jiray odaygan la dhaho General Maxamuud baa bixin jiray hadalku ku hadlana cawdaq wuxuu u qaadan jiray aayad quraan oo kala camal hadduu maqlahay ay maqlo dhaar horena waan u sheegay yaa dhe hadalka ayaa soo qaaday Duq Maxamuud nacam 15 sano ku raacnay nin cawdaq waxa uu tirano walaalkiisna uu soo qaaday oo ani qaraabo aan nahay 25 years buu ku jiray yaa soo qaaday markaan islahanay Duq Maxamuud baa soo qaaday waa aayad quraan camal haddaan quraanka saa u camal falana kulli jannaan geli lahayn laakiin waan qaadnay 25 years hal xafiis booyin muu qorin shaqa 25 markii lagu daro meeqa sano wey tii ku xigtay cawdaq wuxuu soo qaatay kursi baa ku soo kordhay oo la yiraahdo faafi cawdaq ka midnimada iyo faataxadii nin Ibraahim Maxamed Salaal ku soo galay 10 sano waa loo dhameeyay ree Qaasin iyo ree Haaruun iyo ree Maxad baa dhulka degi jiray ree Muuse hal nin baa ka deganaa waagaas Allah u naxariisto duqol la yiraahdo Isaaq Duuble cawdaq suumid u ahaa Ibraahim oo ree Balanbala iyo Qaasin iyo Haaruun iyo Maxad u tanasuleen amarkan ayaa bixiyay Duq Maxamuud hadalkiisana muxuu yahay sida aayad quraan camal cawdaq uu raacay 10 sano Ibraahim soo qaatay waxaa ku xigtay nin la yiraahdo Cabdikay buu noo keenay Balanbala wuu ka riday 5 sano soo galay 5 sano markii la soo dhisay tii dambe waa la istaagay oo geedka lagama soo qaadin haddana wuu soo istaagay wuu soo dhacay markuu soo dhacay gambar loogu talagalay cawdaqan yar yar ee ree Maxaad iyo Aadan Gari oo tirada yar iyo ree Muusana iskaga darbo ree Muuse ayaga waxaa weeye waa askarta ogaadeen kaboog daarot wixii la kari waayo ree Muuse loo diri anana suldaano ana liisoo mari marka waxba walbahaarina cawdaq wixii xoreyn lahaa uu niila jooga nin ka awood badan ma jiro marka waxaa weeye uu ka soo dhacay xagga Duq Maxamuud wuxuu yiri isku yeeray siyaasiyiinta iyo odayaasha cawdaq uu isku yeeray Cabdikay waxaan rabaa uu yiri in la geeyo East Africa Assembly baarlamaanka East Africa cawdaq wuxuu dhigay marka sida aayadii soo 10 sano Cabdikay qaatay 10 sano yuu qaatay waxaa markaa imaaday laba wiil oo asaga qoyskiisa halkan iska inkastoo cawdaq ay mataqaanaa laga yaabo kala qoys ay yihiin laakiin duq ilmihiis umaan u haysan anaga labadoo siduu dhahay umaan ugu raacnay midna 15 sano qaatay tiradii ma inaga dhuntay 40 Cabdikay kumayna darin 15 aadanna ku dara cali burow 5 sano kale ku jira daraartuu soo galay dagaalka lagu bilaabo ku jooga 3700 cawdaq nagu qoray ogaadeen haddii lagu daro 700 iyo wax buu qoray Soomaali haddaan ku darana waa 10,000 ragga ka horeeyay inta kuma haysan marka waxaa weeye weligiin ma maqasheen in boqortooyo la weeraray taariikhda Soomaali ma ku taala gaaris bay ka dhacday waa nasiib daro dadka asaga duqdooqo uu afiyay golaha cawdaq sare ee odayaashana way afiyeen waxba looma haysto ilmo dhalinyaro oo la soo lugay iska ahayn ninkii soo lugay unba ilaahigiisa u taala wax loo haystana waa nin walaalka anaga marka
boqortooyo laguma ciyaaro nin baa idaay ka dhawaajiyey fiin iyo dagiiran wuxuu ka tagay dagiiran wuu dhaqanya fiinna waa hal soo maha laakiin dagiiran wuxuu ka tagay wax uu mudnaan ku lahaa buu sheegin dagiiran sooma qorax badno markuu soconayna suu socdaa raxan buu socdaa wuuna xaragoodaa soomayn arkay marka waxaa weye mana la dili kara haddaad dhahdo waan dili waad ku rafaadi waa ducadii boqorka u maaragtay xifdiyey boqortooyadana diiniyan way ku salaysan tahay in maaragtay la ayido sanad iyo 4 bilood baan ku maqneen inaan soo xulno Cawdaq iyo gabana u noqon waxaan dhaafin waynay inuu calbuna qorane xaq shaqa iyo xaq maaragtay taariikh ahaan oo Cawdaq 5 sano nin lagu soo baarlamaan ku soo galay hidaay waxa idinka ilmaamay Ilyas Barashil baa idinka ilmaamay marka hilmaan hadal kuma jira la yiri Ilyasna 10 sano uu ku jiray aadan suuna 10 sano ku jiray ninkan asaga ma wacay xagaaba soo nin Cawdaq ma aho oo nin mutacallim ma aho muxuu ka soo bilaabay pilot wuxuu ku DO buu noqday district commissioner buu noqday neeru PC ka ahaa permanent secretary buu noqday xogeyaha joogtaha la dhaaf Soomaali waa nin experience leh hatta hadduu waxba qabanin wax fara badan buu qabto maxay reere waxa jiraan weligood wax dhow wasiir permanent secretary reer maxad wasiir buu qaa weligiin lacagtu ha 2 sano hore reer aadan gari wasiir oo weliba qiimo badan bay qabaan reer Muuse wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha waa nin reer Muuse maanta marka Cawdaq yar cagta lagu xay markii la soo xoreeyay ninka soo xoreeyay magac ma la dhihi karaa ninkaas ayta waa laga tuuri mees marka Cawdaq kala duur iska joogo reer Muuse diiday waxaana soo xasuusinay dadka waxa wado jiidwaq ninkii gabdhaha ka goon jiray naaska Cawdaq maanta waa la xoreyni reer Muusana ahani commander yayo jesh marka waxa weeye cidna ma dulmayno laakiin ninkan Cali waa la dulmay gaaris markuu gabana ka noqonay Cali xafiis dawlad oo la dhaho county headquarters ma lahayn bahal caalami ah uu dhisay oo ka meesh ka dhisan maanta duu ka tago taariikh uu ka tagay noqon gaaris wuxuu ku dhisay waxa la dhaho International Cancer Center iyo kii kaliya India loo kici jiray hadda bariyan gaaris baa lagu dhaqaa soo wax qabad weyn maaha marka nin shakhsiyaad oo contracti asal in alla intuu contract siiyay oo lacag ka faa'iideen oo shaqo u qoray way inta Cali duminayso waxaa kamid ah ninka hadda la taagan ana wax si loo qariimo garanay deeqo waa kamid ah u soo sheegay ninka rabo soo sheego 742 milyan contract bas maxay lacagta intee lacagtaas dadka dhan ba ka dhergelaaw Soomaa waa seedigii uu ku xurmeynay marna sodo marna seedi ma garanay marka dadka isuma sino dadna wuu ceebeysay dadna wuu duceysay runta taas weey ninka ka booda ka boodo marka waxa weeye waan soo gabagabeyn waan ku dheeray waana jumcee waad maqlayseen duqeyda geedka hadalkooda chairman-kii baa hadlay duqeyda geedka waad maqlayseen codkay ku hadlayaan waa codka suldaanka Cawdaq weeyo waxaa la yiraahday ummadan muwaafaqo lahayn way baabaadaa muwaafaqada calaamad bay leedahay calaamadeedana waxa way mongoziga suldaanka waxa la yiraahdo waxa aad uga faaleeyay Xasan Cusmaan aniga waxaan rabaa tix yar oo gabay inaan idin tiriyo Cawdaq ma maqlaysaan tixdaasna waa tixan ku daaweyn raba Cawdaq kadibna 2 kalimooyin baan dhahayaa waxaan leeyahay Cawdaqow deelayda maansada ana macallin ku ahaay halkii uu ka daadegi lahaa baan dejinayaa marna waa duciye daawi iyo diirsi nololayde marna waa dambaab iyo dul iyo dawga naareede aan dareer shamaanto kale u daawaleeyahay Cawdaqow dhulkan dahabka deegaanka waxaan eebbe kugu deeqay
iyo duunyadiiyo beerta baan idin dareensiine u diyaarsa gabaygayga waa dood nin waayeele dalle hele dayu iyo dalley adablihii deelo faafidaa dusheediiyo ilaa igirka daanyare adablaha degaygaa ilaa raama dadabkeeda iyo webigan dooxada ahee bidax u daadaayo baldayaay degmadan gaarisaa daarta nii taallo baldayaay hadday duunyo tahay waa dadaasheene baldayaay hadday diinta tahay waa dadaasheene baldayaay wakaa dumarka ay dibadda aadeene baldayaay diyaaradahan ee lagu dalxiisaayo baldayaay suldaan doore baad dub u leedahay baldayaay duqaydaa toddobada ayaa daraftan joogaan baldayaay balaayadan dawtire ay diryaamayso baldayaay balaayadan dawtire ee diryaamayso baldayaay dambaaburashidkiiyo dogoba noolaynta cawdaa qaw haddaad kala didoo duulba meel aado daqsiga dubaabkii ayaa kugu dulmeeraysan dawacaya intii habar dugaag baa ku dilayaan dheh halkaasaan oga baxay intaas haddaan ka gudbo waa gabay un hadda ugu soo degay intaa haddaan ka gudbo ninkaasaa gabayga i yardaaray inaan sii wada ma rabin intaa haddaan ka gudbo aniga waxaan ahay nin reer yaxye waxaan maqlayaa eedda waxay saaran tahay reer yaxye inta badan dameer haddii dameer la yidhahdo way dhaga qaadaan reer yaxye dembiga ma wada laha cawdaaq lixda qoys meel looga haraya ma laha waxaan maqlayaa lixda inay dheheen waan isgoosanaynaa haddii taladana la maqli waayo may lixda meelaan ooga harayna ma laha annagoo reer yaxyaa ceebta iyo daleecaynta iyo gefka dad bay dul saaran tahay oo qoys yar ah oo weliba qoys si yar ah qoyska asaga waxaa waaye boqortooyada qoyska ay soo dooran jirtay weligeedba waa qoyska waxaa weeyo qoyska aniga waad garanaysaan kolley nin baa horteyda sheegay suldaanka in la diido taladiisa odayaasha toddobada taladooda in la diido su'aal baan qabaaya haliga jawaab suldaanka markii ruux la soo dilo qabaa'ilada kale aan wax iska soo dillo geedka la taga halkaa waaye ee magta lagu bixiyo hadday reero isku baaba'aan waxa maslaxeeya toddobada duqi iyo oday suldaankooda weeyo say ku dhacday inaad tale u dhiibatay shalay cimaamad iyo caano ku shubta maantana aad diido macquul maaha waxaan doonaynaa caqliga saliimka inuusan dhumin dhaqanka iyo siyaasiga sooma kalaha dhaqankaa ka weyn soo ma aha maxaa maanta suldaanka looga oohinayaa cawdaaq waxaan la hadlayaa dumarka iyo dhallinyarada khaasatan baan la hadlayaa dhallinyaro iyo dumarow weliba khaasatan dhallinyarow inigaa mongoziga waddanka ah dumarkana waxaa waaye lafdhabarka weeye waxaa la yidhahdaa wasiiruldaakhiliya wasiirka arrimaha gudaha la yidhahdaa inigaa maamulka ku haysaanoo kii maalinkii meelaha ka soo qayliyaba habeenkii farqa ku dhigi kartaan waxaan leenahay suldaankiina waa dulman yahay iyo odayaashiisa waxaana dulmi hayaa dad intay lacag yeesheen iska ciyaarayo oo ku tumanayo waxaan leeyahay yaxya ma ahee waan garab taaganahay suldaanka iyo geedka sidaa uu xasan sheegay haddii maanta ay naga wareegto oo walaalihii ay ogaadeen ay qaataan yaa ka mudnaa inay qaataan ayaga yaa ka mudnaa ceeb maaha meel dheerba ma aadayso ogaadeen bay aadi laakiin waxaan leenahay ogaadeenka waxaan leenahay geedka cawdaaq iyo suldaanka iyo suldaamadiisa hoose waxay soo qaadeen cali binow qorone muxuu qabtaa daad leedihiin haddaan idiin sheegay indhaha haddaynan kiyo madow haddayna gashanin oo indhaha ama dareemaha ay idinka maqan yihiin waan idiin sheegayaa suuqa qorraxey suuq baa loo dhisay ma aragteen weli yaa dhisay aye meeshan wuxuu u imaaday iyadoo kire lagu wada jiro wuxuu u dhisay ofiis ay iska leedahay countida soo min arki countida ranabowtkaan marnana waa noola qorxiyey waad aragteen waxaa u dhisay sidaa uu xasan sheegay meel lagu daryeelo dadka caafimaadka bukaanka qabo sida kansarka iyo keliyahoo kale soo maaha waxyaalo badan oo uu sameeyey oo hadda aanan meel igu qornayn baa jirtaa muxuu sameeyey lama dhihi kara marka wax buu sameeyey naceeb godob baa jirtaa oo dad iska nacayo naceebkaana cawdaaq waa ka hor imaaday lixda qoysna waad ku mahadsantihiin anoo reer yaxya mahad baan idin celinaya waxaan kaloo nii leeyahay waxaa la yidhaahday hadday lagu celceliyo buhubuhu maxaa la yidhi yay u ekaataa yaxye safartan waxaa weeye cali bunowa cawdaaqna waan ku raacnay taladaa wixii ka dambeeya soo maaha cidda geesa yeelashay geesaha laga jibiyo waa in cadaalad la sameeyo weeyo cadaalad in la sameeyo weeyo
wax allaale wixii hoose ee la lahaa hoos baa loo iloobay waa in kor loo soo qaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu wixii aan ku hadli lahaa oo dhan waa lagu hadlay waktigii duhurkana waan joognaayo jamcadii baana hayso oo hadda waa waktigii la adimaayey waan soo gaabin hadalkayga waxaan ku soo gaabini wax alla wixii cawdaa hoos imaado ama dad la kala reebi ha noqdo aniga waxaa la dhahaa sheekh yacquub ama dad la kala reebi ha noqdo ama dil meel ka dhacay ha noqdo ama mag ha la bixin ha noqdo geedka cawdaaq baa arrimaha ku shaqo lahaa geedkaa kala wadaayay waxaan la yaabanahay laakiin dad asagaba in la wada u baahan oo waa mutacalimiin la leeyahay intay fadhiisteen inay dhahaan ruux baan siinaynaa waraaq uu ku istaago waa weli waxaan taariikh soo marin ciddan aan ka dhalannay ma ahee ogaadeenku dhaqankiisa maba ahaba cidda hadday geed leedahoo suldaan ay leedahay arrimaheeda meeshaasaa lagu kala wadaa waxaan leeyahay wiilasha ayaka ee walaalkay cabdiraxiim uu hogaaminaayo meeliina gaarin baad isgaarsiiseene tolkiina ku soo dhex noqda tolkaada iyo kabahaadaba lagama dhexbaxay soomaali tiri dib oogu soo noqda tolkiinni hana la goynina ninkaa walaalka annaga ee fiican deeqow nin fiican waaye nin xun ma aha diyaar baana u nahay shantan haddii laga baxo shanta kale inaan dhisno haddii ilaahayna gaarsiiyo ukaad waxaa weeye macnuhu hadduu cawdaaq isku raaco nin fiican weeye nin xun ma aha yaxya bahasha mar dambe laguma celin karana maba dhehi kari waxya waan ina cawdaaq xoogow gaf baa dhacay suu-u tafaahum baa dhacay cawdaaq kama dhex saarayno laakiin hadday dhibku uu sii socdo dan allay u noqoni lixda dabee cawdaaq inay tashato waxaa weeye waxaan leeyahay wiilashaa walaalaha annage cidda waxaad u horseeteen khilaaf umiida horseedin khayr kolkaan nin warday uu ku dhintay ormo uu ku dhintay gediga kale ee habeenno aan barinaynay aan ordaynay xaggeed ku maqdayneen kolkii walaalahay samawadal magta aan siinaynay ee intaasoo fadhi ay dhacday xaggeed jirteen kolkaan daanyeere ama iskood aan u seexanayna cidda maslaxadeeda xaggey jireen dadka markaa aan maslaxadooda ka shaqaynaynay baad ka mid ahaydeene maslaxadiinaan ka shaqaynaynaayo geedkaa cidda ay geysatee suldaanka ha ku caasinina midda kale waxaa weeye arrintan waxaan u fadhinay sanad iyo bar baan u fadhinay ama sanad iyo 4 bilood baan u fadhinay waan idhaynaynay raayaxaya waan u yeeranay suldaankoodii afti baan ka qaadnay ilaan waxa wax la siinaya cawdaaqba ha ahaadee laakiin waa magaca raayaxaya duqi ahaa xareed oo odayga ahaa maanta wuu imaan waayey asagaa intuu istaaga yidhi cawdaaqow aniga yaxya haddaan nahay haddaad kolba kursiga isiinayso wiilkaas cali la dhaha iisi annakana cali wallaahi tolka si fiican buu kor oogu soo qaaday waxba kama sheegayno waxaa ka fiican muwaafaqada ciddaa ka sii fiican waan soo qaadnay haddaan soo qaadnay intaan weliba fadhiisannay oo kitaab qur-aan isku dhaarinay warkaana waad maqlaysin soo ma intaan weli cali aan lagu dhawaaqin oo annaka aan soo qaadin ka hor waxaan u yeernay duqaydii naga hooseeyeen ee 33 ruux qoys la arkaba wuxuu leeyahay duqay hooseyso waxaan meelaha ka maqlay kolkii fadhi la galay in la leeyahay duqayda hoose waxba looma sheegin saaka waxaan damacnay inaan duqayda hoose ka wala hadashiino laakiin qoys la arkaba waxbaa ka hadlay waqtigaa noo gaari waay duqayda hoose kolkaan iskugu yeernay waxaan nidhi bal ka warrama arrinta seen u galnaa warkayga aad u dhagaysta arrinta seen u galnaa waxay yidhaahdeen waxaa ugu hor hadlay ree muuse
ree abtigay ninkii joogay wuu joogay waxay dhaheen annaka ugaaska annagaan ku kalsoonahay wax alla wuxuu noo keeno kac soo qaada isma daba socon karne waxaa ku xigay cidda aniga aan ka dhashay cawdaaq oo dhan baa afti laga qaaday duqaydoodii kollay duqayda way joogaan way maqlaayeen nin walbaba wuxuu yidhi kac adiga duqaygaan ku kalsoonahay iyo fariista meel isku xira go-aan soo gaara toddoba beri baan meel ku jirnay ilaahay baan baryaynay go-aankii baan soo gaarnay waxaan saa u leeyahay waxaawa war waxaa loo leeyahay duqayda hoose waxba kamay warqabin waa maxay dad aan duqayda hoose ka tirsanayn baa intay dhex tagaan shirka yaa waxay leeyihiin waxba kamaana warqabin oo maxaa lagu ogeysiin lahaa duqayda cidda hogaaminaysay kuwii sare iyo kuwii hooseba way ka warqabeene asaga waxay ahayd kolkii wax lagu dhawaaqa samca wadaaca inuu dhaho wax kaloo u habboonaa ma jiro warkaa asaga meelaha lagu wadwado waxba kama jiro shir baana qaadi doonaayo 33 duqay waan ka wada hadashiin doonaa warkaa inuu been yahay sifa loo ogaado insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay geedka wax uu ka dhamaaday wixii ka dhamaaday wuxuu ahaa cali buu ka dhamaaday ayakoo la fiirinayo duruufo fara badan la dhowraayo ilaa waxaan u malayn 7 duruuf ama 7 shay duruuf waxaa la dhahaa af carabiga 7 shay baan ka tirinay sababta aan ku qaadayno 7 shayna waa soo bandhigi doonaaba 7 shay aan ku qaadnay waxaa ka mid ahaa war ninka kursigu ku fadhiyaay 5 sano kali buu ku soo jiray waxaa laga yaabaa inuu isgoode waxaa laga yaabaa inuu qabsoomine asaga dhib yare asaga aan ku celinno midda kale waxaan niri ciidan ree aabaheen qaybtan maxamuud in oday baa joogo caqli badan cawdaaqnimada ku talaalan tahay asagaa qabsoomi doonaa waan u tegi doonaa midda kale taqriiban ilaa intaasoo bilood baan duqa abookayaan telefoon u diraynay oo aan lahayn abow imow arrinta intay dhammaanin aad ka telisid anigu ahaa weliba ninkii la hadlaayay kollay hadda mana mucaaradaayiyo waxaan leeyahay duqnimo iyo duruufnimo iyo waxyaalooyin wakhtigaa jiray buu la imaan waayey oo ma dhahaye kas buu u imaan waayey laakiin kolkuu imaaday waxay ahayd wixii geedka uu sheegay inuu ku raaco waxaan ogahay aniga maalintii duqdeeqow geedka la geeyey baa anigana yaa la igeeyey weligii waxaan ahay nimaan la bedelin waxaan ogahay xuseen madhaliyo iyo ibraahim maxamed salaad inaan kala reebnay ilyaas barre iyo aadan sugow inaan kala reebnay maalinta say u soo bilaabatay wax kala reebaya waa geedka doorashadii hadda wixii ay isku raran yihiin ninkii ree maxaad muxuu ahaa magaciisa indo iyo cali ay isku raran yihiin baa geedka la keenay ay soo kala reebi waayeen intay damceen nairobi inay kusoo kala reebaan meesha lagu kala reebay wuxuu ahaa geedka cawdaaq maanta laakiin haddaan nidhi hebel baan soo saarnay hebel baan reebnay maalintaaba kolkii la keri waayey meeshaa la keenay maxaa ka dhigay bar xumaatay la yaab waa waxay ila tahay walaalahanaga khayr allah ha siiya ha soo reebtaan weliba adeerkay maxamuud cid ayuunan u horseedin khasaaro yuu u horseedin ha soo reebtaan cawdaaqnimada ha ku soo dhacaan tala waa la ogol yahay tashiga ha ka soo qayb galaan geedka wixii uu ku dhawaaqay bannaanka laga maro in la dhaho arrimaha kalena wada siyaasina mutacalimiin baa wadi suurtagal ma aha ma suurtagelayso geedka ma suurtagelayso geedka cid oo dhan buu hogaamiyaa laba ruuxoo cidda hadday isdilaan meesha lagu kala xalliya waa meesha amisaa laba cawdaaq oo isdishay geedka la keenay oo lagu kala xalliya wax yar ma aha laba ruuxoo cawdaaq intii la keenay geedka lagu kala xugmiyey dad islaaya amisaa la keenay oo lagu kala dhameeyey war masaalixdoo dhan inuu geedka leeyahay weeye maaheena masaalixda nusna geedkaale nusna annakaale wax suurtageli ma ahee ha la soo reebto